السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي القروحة بدن رمضان كريم ميل جوجتان إنا وضع عافماد قبتانا رجينايا ومون روتين أما جدول كينا عنada ee bisha barakeysan ee Ramadaan ilmaha jadwalka cunada inuu saxaya muhiim u tahay Ramadaan hadii lagu jirana muhiim ay ku sii tahay maadaama howlaha ay si fara badanayaan ilmaha inay dhaxda ka bixin ilmaha yaal iloobi insha Allah sanbu sameeyo insha Allah laga soo laabto ilmahana cuntada hada u saxdid bisha barakeysan ee Ramadaan oo jadwalka cunada ma sha Allah uu ku yahay ciid insha Allah ilmo qurux badan ku ciidi doona ilaahana gaarsiiyo ma sha Allah tabarakallah marka subaxda hore marka dukatid salaad insha Allah hada ku noqotid ha ku noqonin subaxda horena cuntada noogu horeys waxa waay anaga Sirlag nutrition jabigeena waa sidaas wiil qurux soo bixin salaad subaxa laga baxay ma sha Allah tabarakallah jabigu waa macaan macad rabbi dharkana bisha barakeysan Ramadaan lagu jiro insha Allah dharka saaid ana kuleel qabnaayaan tan baatiga mid walba siib waay marka insha Allah inaad aruursanin maadaama bil barakeysan Ramadaan lagu jiro hoola way iska badan yihiin dharka aruursan insha Allah inta yar ku soo baxday hore qasaalad iskaga shub hooyad dilayahay ina iska naxna leewaymo marka ma sha Allah tabarakallah waa moon routine ama jadwalkeena cunada asxaabta quruxda badan marka insha Allah wax yar bala ka dhigay ina ka faa'iido doona rajeena janalku wili gambaleelka daafuran insha Allah soo dhawaa asxaabta quruxda badan hadii gambaleel kora furtan waa mahadsantahay video no like gray no share gray waa mahadsantiin asxaabta quruxda badan marka subax hore waxa laga bilaabo ugu horeey waxa waay asxaabta quruxda badan nadaafada daarada salaad lagu dukaday aruurinaya kadib daarada iska xaaqa beerta waraabina waa hooyo walba shaqada ay ka bilaabato ma sha Allah tabarakallah marka morningka iyo shaqada aan qabto waay bisha barakeysan ee Ramadaan ما شاء الله تبارك الله كوك فائديست الله نقدر اللهم آمين وبشي صدقة وبشي قرآن كأسكسو دعينا ولا على فلسطين عدو إنه إلهي كقبته متكسرية إلهي وكريق عن تسرية إنه إلهي كريق إن شاء الله أسكسو دعينا هبليه وقروح ذبان الإسلام كورن كور الله كريقه marka beerti yaan soo xaqaayada kuleel uu jira dabeel way jirtaa habliga quruxda badan marka caleemigeed oo beerta iska riday ibacay ku bid waxa ka aruurinaya beerta dii kale waxay noqonaysaa ma oo ayadana qashin geedkan si fiican uu kugu baxaayo marka ma sha Allah tabarakallah ayada soo nadiifinaya daaradiya nadiifina kadib howlahayga maalmeedkan gali doona insha Allah cunada sida ugu diyaarsado oo waqti far badan iigu lumin jadwalka cunadan ilmaha uu saxayahay insha Allah inta sanilo wadaag doona insha Allah ka faa'iideysta habliga quruxda badan routinkii caruurtu waa soo celiyay videoga hawadaas ha gal insha Allah like far badan saara insha Allah share gareeya insha Allah anigan waan soo badinaaya ma sha Allah tabarakallah asxaabtida quruxda badan mar walba muhiim waa insha Allah inay is dhiiri galino jadwalka cunada ilmaha inuu ku saxayo muhiim waa 5 sano oo horeys ilmaha hada jadwal qurux badan aad ku korisid ilmaha waxay noqon doonaan ilma akhli far badan leh ma sha Allah maskaxda ku koro jir ahaan maskaxan labadaba u kor insha Allah mar walba u joogtay cun isku dheelitirna waxay qayb qaadanaysaa cunugaada caafimaadkiisa iyo korinshiisa labadaba subax hore aroor waay gabdhaha yar ma sha Allah dugsiga aadeen alxamdulillah sina wada ku soo kacnay waagina alxamdulillah nimcad rabbi waay asxaabtida quruxda badan beerta la waraabinaa subax hore marka daarada la xaaqo beerta la waraabiyo adiga dhan waxa dareemaysaa ma sha Allah tabarakallah adiga dhan fircooni salaad subaxda tukatay insha Allah howlaha qabso urdada ha ku noqonin هذا هو ردك النقط وقت فربنا كعلوم دونه وقت الماء عند حتى كومة توسيس عنق وقت وسوق عايا لكن هو مركز وجد الماء بدنا ويسوق عن وقت هو يسوق عن صباح هنا أرورت الماء للسيو ما شاء الله ما أنت أصلا ده بيعدي حتى معلومة يسوع أرورت الصباح إنه يسوق عن وفي عنته هاي فهمدوا وفي عنان سافر فرعوني كخذايا ونفر بدنا وكوق عادنا مركتوب بدي بيه مركي لقصو استعمال كدب إن أساس شيء أم بيه كورس خروج بدن tubada nadiif ku aanaysa cagaarna ma ka yeelanaysa sida sameeyo laakiin biyiya waxay u sameynayaan cagaar marka insha Allah tubada mar walba inay nadiif ku ahaato jikadii had soo galay banaanka taa ka soo dhamaaday ilmihi waxa u saaraya Sirlag nutrition sida loo karay iyo qaabka loo isticmaalo dhammaan hore oo soo hadla habliga quruxda badan ayadoo diyaarsan insha Allah arki doontaan alaab fara badan iyo mataala alaabta habeenka la iska nadiifiyo suxuurta marka la cuno kadib la iska nadiifiyo sidee maalinta oo waqti ay ka lumin laakiin habeenkii hada alaab iska nadiifinin subaxdii oo waqti fara badan ka gali doono qaasatan hooyo ilmo yar heysata tahay waqti fara badan loo mehelay subaxdii habeenka hoolaha culus insha Allah iska qabo waana bil cibaado asxaabti quruxda badan ku ka faa'iideysta Allah nagu dar Allahumma aamin inta xanuunsan ilaahay noo caafiyo inta dhimatay ilaahay ha u naxariisto inta nool cimri dheer iyo caafimaad waalidiinta dhimatay ilaahay ha u naxariisto marka asxaabti quruxda badan insha Allah alaabtan yar oo sink igu jirta insha Allah iska soo nadiifinaya sidii alaabta igu badanin alaab gacan ku heen waay habliga quruxda badan hadii kale waxa arkaysaa meesha soo buuxdo wax isticmaal ma taqaana marka ma sha Allah ayadaas yar iska soo raacsiina baaquli yar waay ilmahan cunto ugu diyaar saraba marka intaas
iska nadiifinayaa insha Allah. mar walba muhiim ay ku tahay jikadaada habeenka iyadoo nadiif inaad seexatid. weelkana weelkii dalag waa habliga quruxda badan waa taqaaniin asigana dalaga ka dhamaaday in la nadiifiyo waa insha Allah. marka waa la nadiifinayaa kadibna insha Allah waa arki doontaa waxyaabaha dhan aan qaban doono. waa full routine ama jadwalkayga subaxdii habliga quruxda badan inaad keli doontaan rajeynayaa. ilmahaaga jadwal cunno haduu ku leeyahay maasha Allah tabarakallah hambalyo. haduu ku lahayn insha Allah videogan haddii aragtid muhiim ku yahay insha Allah inuu ku dhiirigeliya rajeynaya insha Allah. ilmaha jadwal u sameyso bish barakeysan in Ramadaan muhiim ay ku tahay. maanta idil ilmo wax looma karin karo marka jadwalka sida ugu fudud ilmaha 30 daqiiqo waxa uu diyaarsan kartaa quraac iyo qado maasha Allah tabarakallah iyo isneegooda kala araga ku dhaa maasha Allah tabarakallah. markay soo kacaan ilmaha siiso kadibna maasha Allah tabarakallah jadwalku ku saxan yahay adiga xataa waa marka saan hoosh u dhameystid xogaa yar xataa soo indhigiduusa maadaama saa u kacda suxuurta 9 saac baro kala la kaca ilaa salaad subax waa la soo jeedaa xogaa dhafar yar waa maaho marka ilmaha wax dhan iska diyaarisid quraacdooda koowaad ay siisid indhaa waa soo guduusan kartaa insha Allah. kadib quraac labaadkooda hadana soo kacaysaa maasha Allah tabarakallah. quraac labaadkan 3 saac bar ilaa 4 saac insha Allah ay ku dhaafin sida ilmaha qadada kuugu cunaan alaabta markaas soo dhameeyay maasha Allah tabarakallah. sidaas ay ku soo baxday hablihayga quruxda badan mar walba muhiim waa insha Allah. marka geedkana aan si fiican u dhaqaaya dulduleelu leeyahay dulduleela dalaga busta waxaas dhan galaayo markuu kala furmaaya waqti hore gatay laakiin maasha Allah lacagta ka bixiyay kuma qasaarin wax badan oo giraan 6 nooc cunto ku shuban kartaa dalaga marka aan u isticmaalaa maasha Allah. marka alaabta dhameysidna istiraashooyinka muhiim ku yihiin tii kale istiraashi adiga waxaa noqonaysiina ku dhaa 4 saac ina istiraashi raadsid mar walba istiraashada isticmaashid ina iska nadiifsid muhiim ku tahay jikadaada quruxdeeda carafteeda waaya hada istiraashada aan nadiifinin waxay noqonaysaa ina iska tuurto mid cusub aa soo bixisida wayna kugu far badanayaan. jikada mar walba 2 xabo ilaa 3 xabo ka badan uma baahnid mid qalalan oo meelaha oo qalalan ku tirsatay ilaa 2 xabo isku bedelatid. marka dhamaan jikada ama meesha siinka waxyaabaha yaala geedka shaambada waaya habliga quruxda badan waa iska nadiifinaa maadaama xalay dhan saas u yiilay ina iska nadiifiso waxa gacanta maristaa fiican mar walba muhiim waa insha Allah wax ina gacanta iska marisid subax hore marka soo kacday jikadaada habeenkii iska nadiifiso wax waqti far badan kaama galay cuntada ilmaha u diyaarso waa bilka barakeysan ee Ramadaan kadib jabigaaga iska qaado maasha Allah tabarakallah. waxa laga yaabaa inaad duhurkii u soo noqotid jikada oo waqti far badan uu ka galin marka maasha Allah tabarakallah habliga quruxda badan routiinkan waa u xiisteen insha Allah laagiisa aan arko like insha Allah kun gaarsiiya wili jan gambaleelka taafur gambaleelka furo waa maasantiin habliga quruxda badan sida quruxda badan ay ugu xirantihiin maasha Allah tabarakallah. asxaabteeda cusubna soo dhawaada asxaabteeda joogta maasantiin garbihi ay tiin video ii share gareeya bacdaas hadaa aragtidna maxaa soo xasuusanaysaa jalaato ama baraf anaga baraf aan diyaarinaa subax hore aroor maadaama ay tahay subaxda hore xiranaa sida maqribka loo isticmaalo baraf maasha Allah tabarakallah noqonaya adeeg subax hore aroorta xiro ama habeenka xiro anaga subaxda badan iska xirnaa marka qaar habeenka way dhacdaa in la xiro marka waa kaas hadaan diyaarinaya ugu yaraan 10 xabba la xiraaya barafka saaida loo isticmaalaya marka waa kaas barafka soo xirxiranaya jadwalkayga subaxdii waaya asxaabta quruxda badan ina keli doontaan rajeynaa hooyo walba jadwal leedahay laakiin muhiim ku taas subax walba inuu jadwalkaada uu ku saxan yahay routiinkan oo morningka hada ka heshaan insha Allah waan soo badanaya qaybta commentiga insha Allah isku soo muujiyo insha Allah waxyaaba jeclaan lahayd in video soo sameeyo insha Allah qaybta commentiga igu soo qor waa muhiim waan ii dhiirigelin habliga quruxda badan sida quruxda badan ay igu soo duceynaysaa idinka mahad celinaya jazakallahu khayr habliga quruxda badan marka waa kaas ay nutrition baby and protein waa kaaba hooyaha waa korinsha caruurta mar walba insha Allah kor u qaada idinka inta in ka badan gaarsiin kartaan barafkiya soo xiray hadda waa xareenaya ani dhahooya marka qayb waxa ku jirtay oo xal suxuurta la galiyay barafka asxaabtii quruxda badan uba dhagaabo marka qaybtan kala la gelinaa qaybta koraal soo marina hadii kal friisaid uu dhagaa galabta in la isticmaali waaya dhacdo marka barafkii hadda ku soo guraya maasha Allah tabarakallah kadib ilmahayga quraac siisanaya kala arag jabigeena maasha Allah alxamdulillah hadda waxaan u diyaarinayaa snack ama fruit maanta jadwalka ugu jiro waxa iskugu daray cambo liin macaan tufaax iyo qaro qasab ma 4 shay inaa iskugu dartid 2 iskugu dari kartaa hal shay wixii ku yaala markaas laakiin 4 shay iskugu daray maasha Allah tabarakallah ilmahaada abateedkooda laaw haduu yahay fruitka insha Allah ugu roonaa fruitka abateedku furaa calooshu socodsiya cunugaada calooshiisa deegan tahay ama istaag uu qabo marwalba insha Allah fruitka si qaasatan cambaha maasha Allah tabarakallah iyo qaraha
ilmaha uu wanaagsan yahay qaasatan qaraha saaid waa ilmaha insha Allah looga faa'iideeyo waqtigiisa waa cambaan hadoo noo bilaabanaya marka ma sha Allah tabarakallah sida ugu macaan ilmaha ugu diyaarsado oo kala arago ilmaha ay naciyeen ilmuhu waxa jiro khudaarta marka mixed laga dhigo ama la isku dardar aan isticmaalin sida aniga khudaarta marka isku daro ilmaha waxyaabaha ugu daro u macaaneeyo insha Allah videogana ku arki doontiin hableey quruxda badan mar walba ilmaha muhiim u yihiin ina fruit siisid qaasatan markay yar yihiin insha Allah ku bilaw markay weynaa ayaga dalbanayaan ma sha Allah tabarakallah hooyo nooc hebel si haday xataa ku oolin waxa leeyahay nooc hebel oo baahana marka magaalada aadiis waa lagu dirsanaya meesha ilmaha ninac ugu soo gadleed mar walba insha Allah fruitka u soo gad ayagana way kula qabsanayaan insha Allah waana u muhiim ilmaha fitamiino fara badan ay ka helayaan maqaar dhalaalayo qurux badan ilmaha ku yeelan doona insha Allah hadana tufaaxi waa soo dhilay ama qolofka ka soo qaada hableey quruxda badan insha Allah tufaax cagaan dhadhanaan yaro kala aragu leeyahay ma sha Allah tabarakallah wuu cusub yahay marka asigaas ugu soo daray hal xabo liin macaan iyo cambahooda iyo qarahooda waa afar shay oo ka kooban yahay ma sha Allah tabarakallah dhamaan fitamiiniska u baahnayeen way ka helayaan kala arag waana mixed laba maalna siisan kartaa ilmaha hadii badan yihiin hal maalna isticmaali kartaa fruit far badan waa ma sha Allah tabarakallah laba bari inta u gaar insha Allah siin doona mar walba in qiyaas siinaysa marka cunto siis kadib u raacsiisan kartaa ama labada quraac inta u dhaxaysa siisan kartaa mar walba ama qadada quraacda u dhaxaysiin kartaa galbiya siisan kartaa fruit ay waqtiga la isticmaali karaa laakiin barqadiya ugu fiican ilmaha in la siiyo sidoo abateedkooda ma sha Allah tabarakallah oo noqdo marka baby kala aragan ku dhahay I love you qarawaay subax hore waay marka waxa taagan oo subax hore qaraha ku bilaab marka cuntid quraac labaadka insha Allah kugu siinaya hayuu leey laakiin gacanta kama deenayo ma sha Allah tabarakallah wuu la soo aadaya inoo qaato raba ugu dambeyn marka dambe uu qaatay iska dhaafaan dhahay iska qaata iska cuno marka wax kama dhimay laakiin khudaarta in ilmaha ku bilaabo cunto markay cunaan kadib ay ku isticmaalaan fiican marka soo diyaariyay soo nadiifiyay sidaas quruxda badan ay ku soo baxday hableey quruxda badan weel u sameeyso oo ilmaha fruitka ku siisatid waxyaabaha aan ku dari doono sirta waxa waay wax yar oo malab aad ka badanin iyo jablin dhanaan fruitka intaas hadaa ilmaha u raacsiisatid sokor dabiici ayaga leh wax yar malab iyo liin dhanaan hadaa ku sii dartid iskama qaban karta kala araga laha macaan ma sha Allah tabarakallah ilmaha way ka helayaan cunug maanta idil wuxuu ku leeyahay markuu cunto cuno hooy fruit si marka insha Allah fruitka ilmaha u macaaneeya qaabka jecel yahay mar walba u diyaari hadii sidan kugu cuneyn cabitaan uga dhig mar walba cabitaanada adka insha Allah ilmaha siiso quraacdi nutrition cereal u soo diyaariye waa morning am quraacdeena ugu horeysa fast quraac labaadkan waxyaabaha u diyaar insha Allah waa arki doontaa mar walba muhiim ku tahay inaad siisid ilmahaaga cun isku dheelitiran qaasatan cereal wax horina ku bilaawdid iyo biyaha xulba insha Allah soo isticmaali doonaa hableey quruxda badan hadda waxa la gaaray 3 saac bar quraac labaadkooda maanta waxa waay baradho iyo beergeel ma sha Allah tabarakallah yahay sibsaani barbarooni basal intaas ka kooban tahay beerka ilmaha muhiim u yahay dad fara badan waxa arkay ilmaha yar beer lama siiyo ilmaha beer waa la siin karaa qaasatan ilmaha iron-kooda dhacdo insha Allah siiso beer ariga siin kartaa laakiin lagama badiyo insha Allah beergeelka siin kartaa ilmaha sanad wixii ka weyn beergeel uu ku isticmaala duukayare laakiin beer ari laakiin wax yar ina siisan garaamka macnaa ka yareysid borotiinkiisa saaid waaye ilmaha dhiiga cas oo ku yaraado muhiim u yahay hableey quruxda badan fitamiino fara badan inay ka helayaan ma sha Allah tabarakallah marka soo diyaari dhamaan si quruxda badan ku soo baxday ma sha Allah tabarakallah quraacda waxa waaye beer iyo malawax iyo fruitkooda waa quraac labaadkeena ma sha Allah tabarakallah marka weel oo daboolo inuu ku leeyahay ilmaha ama weel inuu u diyaarsatid maadaama bil barakeysan Ramadaan lagu jiro insha Allah ilmaha marka dugsiga laga soo diiqay qaarka jooga insha Allah loo kuleena hal meel dhexda loo dhigayo ma sha Allah tabarakallah adigana waa iska nasan kartaa inta dugsiga sugas ilmaha yar kana quraac kooda siistay oo cereal inta iska dhedheelay quraac labaadkooda u diyaariyay fruitkooda kadib insha Allah xogaa yar indhaha soo gudusanaya nafta xaqay leedahay kadib insha Allah waxyaabaha aan qarinayo qadadii waqti qadaa la gaaray hableey quruxda badan 7 saac insha Allah qadadii ku dhaaf sida ilmaha qurux badan kugu hurdaan jadwalkeena maanta waxa ku jiro inaan hilib isticmaalin qasab ma ilmaha inaan hilib siisid ukun iyo waxaan soo hoolay bocor cade yaanyo bocor gaduud insha Allah ay qudaar haysan insha Allah isku dar carrot iyo wax yar oo baasto waxa kor ugu daray waxa paprika huruud cusbo insha Allah maraq digaag anaga ma isticmaalna hableey quruxda badan marka intaas insha Allah ugu soo karin doonaa baastadan 5 minutes aan lahaa hableey quruxda badan marka hurdada ka soo kacdaan qura salaada dukatid ilmaha inta qubeyskooda aad diyaarinaysid ayadan dabka ku saaranta kala araga ku ma sha Allah tabarakallah ayadoo kulo dhexda u dhigay ilmahaaga ma sha Allah tabarakallah waqti fara badan uma baahdo 5 minutes waay hableey quruxda badan
mar walba muhiim waa insha Allah ina ilmahaada cunno isku dheelitiran siisid sidaas dabka hal mar la saaraya waxaan faara kala haraay maaha baastada insha Allah soo tijaabi ilmahana saaid u jecel yihiin macaroni ka dhigi kartaa laakiin baastada dheerka ciyo bislaanaysa bliyo quruxda badan marka dabka markaa soo saartay insha Allah ka tagin ilaa baastada iska qabsato ama baastada ay ka bislaato fargeetaan u baahan tahay inaad isticmaashid qaando ilaa baastadii dhammaan wax dhan suugada waxa lagu karinayaa dheecaanka u dhalay wax yar biyaha ka badinin oo mitaad camal oo bislaanaysa baasta macaan badan oo kala arago inaba caadiina insha Allah soo bixi doonto gadaal waxa dheecaanka uu dhigaya ama aan ku qoynayno waa arki doontaan waxa isticmaala booska hilibka noo gali karo oo ka faa'iido badan ma sha Allah tabarakallah fitamiino fara badan leh boqorada qudaarta la dhigi karaa waa koostada ilmaha hadii ka diidan sida insha Allah ugu dhig koostada hufay iyo heed asxaabta hore video ugu soo sameeyay qaabka fridge loogu keedsado waa soo baxsanaysaa waa shiidanaysaa ma sha Allah tabarakallah waa kaas markaa soo shiiday ayada mix marka ugu dambeeyo ama waxa ugu dambeeyo lagu daraayo waa baastada maadaama koostada fara badan ay u baahneen fitamiin sida nooga dhimanin hableyga quruxda badan hadda uu mitaada ku filan hadda diyaar inoo tahay oo konton kora ugu soo daray hal xabo oo kon insha Allah oo kunta isticmaalay hal xabo oo kun way hableyga quruxda badan waana ka badsan kartaa laakiin intaana nagu filan anaga ma sha Allah tabarakallah alxamdulillah ilmaha hadii badan yihiin laakiin ugu yaraan 2 xabo oo kun waa ugu dari kartaa ilaa 3 xabo mar walba insha Allah ilmaha hadii xasaasiyad ku qabin insha Allah hadii xasaasiyad ku qabaan insha Allah ka jooji ilmaha wax dhibaayo insha Allah mar walba ina siinin anaga xasaasiyad waa qabnaa laakiin ukunta iskama badino marka qaar waa xadnaa marka qaar wayna dhibtaa marka qaarna ma dhibto habley quruxda badan marka kaas marka soo diyaarsadas quruxda badan ee ku soo baxday ayadoo kulul insha Allah ilmaha u diyaari baastadan kuleelka lagu cunaa inaba caadi ma 5 minutes Allah ku diyaarsan qado waa jadwalkeena oo cuntada ama jadwalkeena ma sha Allah tabarakallah oo cunada habley quruxda badan ina kili doontaan rajeena waa full routine oo jadwalka cunada caruurteeda habley quruxda badan mawduuca jeclaalaheed inaan ka hadlo ama mawduuc inaan ka soo sameeyo video insha Allah qaybta commentiga insha Allah noogu soo reeba marka soo diyaar quruxda badan ku soo baxday. Assalaamu calaykum.